بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay tahay bishii 18 bisha November 2019 waxay ciidamada dambi baarista Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen abaar 9kii barkii subaxnimo TV3 Cable TV Cabdiqaadir Suleymaan Casiir Coday kadib markii ay u akhriyeen warqad uu soo qoray wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye warqadaasi oo faraysay ciidamada dambi baarista intii fatiraha la xidho telefishinka Cable TV na la xayiro iyadoo warqadaasi wasiirku iskii u qoray aan sharcigana loo marin maxkamadna aan la geynin dacwadna aan lagu soo oogin xuquuqdii iyo xaqii aan u lahayn inaan iska difaacno eedo wasiirku soo jeediyay aan Cable TV aanan helin taasi oo ka soo horjeeda shuruucda iyo qawaaniinta u yaala Soomaaliland ee uu damaanad qaaday dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xeerka saxaafadda ee xeer 27/2004 uu jideynayo oo uu sheegayo qodobadiisa muhiimka ah inaan saxaafadda la xidhi karin la hadidi karin war loo diidi karin lagu hagardaameyn karin shaqadooda ayna gudbin karaan xuquuqda iyo macluumaadka ay helaan ee labada dhinacba dhaliilo iyo wanaag labadaba iyadoo qodobka saddexaad ee xeerka saxaafadda Soomaaliland uu sidaas sheegayo farqooyinkiisa A B C iyo D ayaa haddana waxay xukuumaddu tallaabadaasi qaaday iyadoo aan ka fiirsan xeerarka iyo shuruucdii dalka u yaalayna aan ixtiraamin wasiirka warfaafintuna uu rabitaankiisa warqadda xayiraada ugu qoray tafatiraha TV-gu wuxuu ku xidhan yahay sifo sharci darro Cable TV-na wuxuu ku xayiran yahay sifo sharci darro Cable TV mudooyinkii ugu dambeeyay ama toddobaadkii ugu dambeeyay waxa lagu soo oogay dacwado la xiriira hay'adda duurista oo cabasho ka muujisay warar Cable TV uu ka sii daayay gegida diyaaradaha ee cigaal ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale warar ay xukuumaddu aanay meelna u soo marin dacwadna ka keenin sifo sharciyana u soo marin oo sheegaya in la wareystay Suldaan Wabar marka hay'ad warbaahineed la xidhayo ama marka warfidiyaan la xidhayo dariiq waxa weeye in dacwadda la keeno xeer ilaalinta xukuumaddu gudbisato xeer ilaalintu maxkamadda geysato maxkamadda noo yeedho eedda dacwadana la siiyo gal dacwadeed la furo sharci yaqaanadeeda qabsano sharci yaqaanadeeda ay keento maxkamaddu isku kaaya dhageysato dacwaddu markaas sidaasi cidda lagu helo iyadoo madaniyo aan qofka la xidhin ay markaa meeshaasi lagu kala baxo laakiin xukuumaddu iyadoo caadifadeeda iyo cunfiga ay qabto iyo dareenkeeda iyo rabitaankeeda iyo waxa iyadu jeceshahay doonaysa inay xidho hay'ad warbaahineed waxaan u aragnaa inay khalad tahay maaha markii ugu horeysay arrintan dhacdo waxay ku dhacday hay'ado kale warbaahineed website-ya xidhan joornaalaha xidhan TV xidhay wariyaal baa gudaha ku xidhan wariyaal baa dalka ka cararay waxaanay arrintani soo socotay muddadii 2 sano ee ugu dambeysay Cable TV-na waxa uu qayb ka yahay warbaahintaasi hadidaadda iyo caburinta iyo cagajugleynta lagu hayo ama baxariga lagu hayo ee dalka Soomaaliland ka dhisan marka wax micno ay kaga duwantay ma jirto maana markii ugu horeysay Cable TV la xidho xukuumadda ka horeeyay baa xidhay oo ka dabaashay waanu shaqeynay muhiimaduna waxa weeyaan in shacabka iyo bulshada ay helaan xaq ay u leeyihiin iyo xorriyadda ay u leeyihiin wargelinta iyo waxbaridda iyo madadaalada warbaahintu ay ku shaqeyso taasi ayaan anaguna qayb ka nahay waxaanu sii wadaynaa oo sii joogteynaynaa oo aanu ku dhaganahay inaanu shaqadaanu sii wadno